يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولاليك أن جعلها ملك استجوكتان وحن دين صدر يا سلام قالئة وحجري برنامج قروح بدن أو أنكبلا وني جروب كينا والالوانية واتساب كا تلو ومحي برنامج كاس قد خصك الرحمن وبرنامج لغوري يقي أمانتي سنة دافع عالم كلاغاك لصدري run ahaantii waa barnaamij khayri ah oo ummaddeena u kaxayn kara xagga iyo wanaaga. waa barnaamij aan ugu magac darnay taqliidka quraada caalamka oo aan isbuuc kasta maalinta jimcaha aan ku soo qaadano. barnaamijkani wuxuu si toos gruubka WhatsApp-ka ee walaalwaaniye uga bilowdaa saacadda Soomaaliya markay tahay 9 subaxnimo ilaa salaada maqrib. wixii ka dambeeyana waanu xirnaa barnaamijka. kadib maxaa xigi doona? kadib 3 qof ee ugu codka macaan ayaan ummadda u muujinaa oo aan haddaba idinla wadaagi doono. barnaamijkani ee aan fiidiyogan idinkula wadaagayo wuxuu inoo qabsoomay 18 Rajab 1441 oo waafaqsaneed 13 Maarso 2020. waxaan ku soo gudbin doonaa 2 qof ee ugu codka qurxoon intii ka qayb qaadatay barnaamijkan. dad badan ayaa dadaalay wayna mahadsan yihiin. dad aan tiradooda la soo koobi karin baa waqti ku soo bixiyay, balse guushu dadka oo dhan ma raacdo oo waxaa guusha barnaamijkan qaaday dadka soo socda. talow yay kala yihiin dadka. ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا حامل القرآن. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يا حامل القرآن قد خصك. baahda walaalwaaniye waxay halkan hambalyo diiran uga dirayaan walaalaha kala ah Najma Xuseen Maxamed iyo Cabdifataax Saleebaan Cabdiraxmaan oo barnaamijkan wacdaro ka dhigay iyagoo kala galay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad. dhammaan walaalaha khayrka u tartama cid walba doonaysa in ay ka qayb qaadato barnaamijka taqliidka quraada caalamka waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan ku dari doonno gruubka WhatsApp-ka ee walaalwaaniye si aad jimco kasta wacdaro laga yaabo aad ka dhigtaan. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.